السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سو دhowaada walaalayaal kuna soo dhowaada xalqadeena Bookmal Podcast waa safar aqooneed aan ku eegayno buugaagta ugu muhiimsan uguna saameynta badan dunida anagoo markaas ujeedkeenu yahay inaan luqadda Soomaaligeena aan soo turjunno si markaa asxaabta kanaalkii ugu xiran ay markaa u wada faa'iideystaan wixii aqoon iyo cilmi ah ee buugaagtaas ku jira سيادراديدا هديت ساعة مركز كوجو رئيسي إن شاء الله كان لنا قصة بير سفر كان إن شاء الله قيب كنقو هدي عاد هوري وجرتنا كان لنا عاد بدو ما سنتوان كاجا مع علينا يعني حلقة دينا ما أنت وحنكون فرقينينا بكرنتي عاد مهم بوجاس وأصلنا هاي الصومالي هان حتى بوجاني عاد وإنه أنفعي 20 كجرة إن المركز كدولة أهان إن الحوج صارنو بوغا مغيس وحالي هذا واي نيشن فايل maxay dawladuhu ama ummaduhu u fashilmaan buugan waxa uu ka hadlayaa sababaha keena in dawladaha ay fashilmaan iyo sababaha keena in dawladaha ay horumaraan cashiro fara badan oo runtii aad muhiim u ah ka Soomaali ahaan wax badan naga anfacaya inaan buugan ka korsano ayaa ku jira buugan waxa qoray laba qoraa oo loo kala yaqaano Daron Acemoglu iyo James Arthur Robinson Daron Acemoglu waa professor cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda loo yaqaano MIT ama Massachusetts Institute of Technology James Arthur Robinson isaga laftirkiisu waa aqoonyahan jaamacadda loo yaqaan Chicago University ayuu asaguna cilmiga dhaqaalaha ka dhiga buugaagta marka ay wada qoreen labadan qoraa waa buugaag aad u badan buugga koowaad ay wada qoreen waxa loo yaqaan Economic Origins of the Dictatorship Democracy 2005 ay buuggaas wada qoreen buugga labaad ay wada qoreen waxa la yiraahdaa Why Nation Fail maxay dawladaha ama ummaduhu u fashilmaan ayagana waxay qoreen 2012 waxay sidoo kale ay wada qoreen buuggan loo yaqaan The Narrow Corridor 2019 ay buuggaas wada qoreen buuggan afaraad ee loo yaqaan Power and Progress waxa si wada jira u qoray Daron Acemoglu iyo qoraaga loo yaqaan Simon Johan marka buugga kaliya aysan labadan qoraa aysan wada qorin Daron Acemoglu iyo James Arthur Robinson waa buuggan u dambeeya ee Power and Progress 2023 haddaba saaxiibayaal waxaan soo qaadan doonaa 18 cashir ee buuggan ugu muhiimsan ee ku jira aniga oo markaa u arka in haddii aan nafteena ku dabaqno ummad ahaan inaynu markaa ummad ahaan aynu horumari doono wax badanna markaa dalkeena iyo ummadeena ka bedeli doona cashirka ugu horeeya aan soo qaadanayna wax weeyaan qorayaashu waxay soo bandhigayaan wadamada fashilmay iyo wadamada aan fashilmin inay ka kala duwan yihiin hay'adaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha waxay leeyihiin ama ay aaminsan yihiin ama ay ku doodayaan wadamada horumaray waxa ay xoog saaraan bay yiraahdaan hay'adahooda siyaasadeed dawlad ahaan inay noqdaan dawlad awood leh cida dawladdaas maamulaysa lala xisaabtamo dhaqaalahooda inay xoog saaraan waxyaabahaas bay xoog saaraan buu leeyahay juqraafiga iyo meesha ay ku yaalaan iyo kheyraadkooda dabiiciga ahne waa waxyaabaha wuxuu leeyahay kaaba inay markaa horumar sameeyaan laakiin waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin ma aha halka dawladaha fashilma bay leeyihiin ay markaa hay'adahooda siyaasadeed aysan xoog saarin juqraafigooda iyo kheyraadkooda dabiiciga ahne saameyn buu ku yeelanayaa buu leeyihiin oo kheyraadkooda kale kama faa'iideystaan maamul fiican markaa ma lahan cashirkeena labaad ee buuggan aan ka baranayna wax weeyaan wadamada fashilmay waxa ku badan hay'adaha kale taliska ah dawladaha wadamada fashilmay dhamaantooda waxay ka siman yihiin qorayaashu sida ay ku doodayaan waa dad ay hogaamiyaan bay leeyihiin dad kale talis ah oo ayagu oo kaliya markaa go'aankoodu soconayo sababtoo ah bay leeyihiin awoodda ayaa dad yar ku kooban wadanka dhan bay leeyihiin dad yar awoodooda maamulaya dadkaas yar bay leeyihiin markaa waxay abuurayaan bay leeyihiin fashil
halka bay leeyihiin wadamada horumaray ee dowladahoodu ay awoodda yeelaan ama awood ay leeyihiin uusan markaa ahayn wadamo kala talis markaa ay gacanta ku hayaan. marka waxyaabaha ummadaha burburiya bay yiraahdaan waxaa qayb ka ah markaa hoggaanka oo noqda markaa kala talis. kuwa markaa horumarayna bilcagsi waaye oo hoggaankoodu markaa hoggaan kala talis ah markaa ma aha. cashirkeena saddexaad ee buugga aan ka baranayna waxa weeyaan wadamada horumaray bay leeyihiin waxa ay sameeyaan iskaashi inay la sameeyaan dowladaha ay dariska yihiin, iskaashi inay la sameeyaan dowladaha dunida saameynta ku leh, iskaashi markaa inay la sameeyaan ururada caalamiga ah. iskaashigaas ay sameynayaan bay leeyihiin waxa uu keenayaa horumar iyo badhaadhe markaa inay gaaraan. sidaa daraaddeeda waxyaabaha keena bay leeyihiin in ay markaa ummadi ay burburto oo ummadi ay fashilanto waa iskaashi la-aan. hay-adahooda ama dowladooda bay leeyihiin iskaashi safiican ma sameeyaan. waa dowlado xirxiran, waa dowlado close door loo yaqaano, albaabkooda uu xiran yahay, open ma ahan bay leeyihiin. dowlado furfuran oo iskaashi wadamada kale la sameyn kara ma ahan. horumar iyo waxyaabahaasna kuma tallaabsadaan. cashirkeena afaraad ee buuggan aan ka baranayna waxa weeyaan wadamada waxyaabaha keena bay leeyihiin inay fashilmaan waxaa qayb ka ah kelitalisnimada dhaqaale. in dhaqaalaha wadanka qolo gaar ah gacanta loo geliyo. wadamada fashilma bay leeyihiin waxaa ku badan in dhaqaalaha wadankooda oo dhan ay dad gaar ah gacanta ugu jiraan. sidaa daraaddeeda wadamada horumaray dhaqaalaha wadanka ma aha bay leeyihiin kuwo wadanka dhaqaalihiisu markaa uu qof gaara ama koox gaar ah gacantooda ugu jiro, dowladda wadanka dhan gacanta ku haysa. sidaa daraaddeeda marka wadamada waxyaabaha fashilya bay leeyihiin waxaa qayb ka ah in dhaqaalaha wadanka qolo gaar ah gacanta loo geliyo. sababtoo bay leeyihiin waxyaabahaasi dhibaato ay markaa ummadda u horkeenayaan, dalkuna markaa waa u fashilmaya. cashirkeena shanaad ee buuggan aan ka baranayna waxa weeyaan waxa uu leeyahay qoraaga wadamada horumaray fursadaha waa loo siman yahay, halka wadamada aan horumarin fursadaha ka jira marka aan loo simayn. wadamada horumar bay leeyihiin fursadahooda dhanka wadanka dhammaan muwaadiniintu diintay doonaan haystaan, fursadaha waa loo wada siman yahay. bilcagsi wadamada aan horumarin bay leeyihiin ee fashilma waxyaabaha fashilka u keena waxaa qayb ka in fursadaha marka aan loo sinayn. waayo bay leeyihiin fursaduhu waxay abuuraan dhaqaale bay abuuraan haddii marka ummaddu markaa u sinaato. waxyaabaha burburiya waxaa qayb ka bay leeyihiin wadamada sinaan la-aanta fursadaha. cashirkana lixaad ee buugga aan ka baranayna waxa weeyaan wadamada horumaray waxay xooga saaraan oo ay dhiirigeliyaan bay leeyihiin hal abuurka. waayo hal abuurku waa furaha horumarka. sidaa daraaddeeda waxyaabaha ummaduhu ay u fashilmaan, waxyaabaha ummadaha keena inay dibdhac sameeyaan waxaa qayb ka ah in dadka hal abuurka leh aan la dhiirigelin, in dadka hal abuurka leh niyadda laga dilo, ama qaarkood waxyaaba aysan jecleen lagu sameeyo inay xabsi la geliyo kale markay hal abuur iyo waxyaabaha sameeyaan. marka damo waxay leeyihiin hal abuurka la dhiirigeliyo wadanka ayaa horumar sameynaya. markastoo dadka hal abuurka lehna aan la dhiirigelin wadanka fashil ayuu gaari doonaa. cashirkeena toddobaad ee buuggan aan ka baranayna wax weeyaan waxyaabaha keena inay ummadu fashilanto waxaa qayb ka ah maareynta kheyraadka dabiiciga ah. wadanka haddii uu ku fashilma bay leeyihiin in kheyraadkiisa dabiiciga ah uu maarajgareyn waayo ama uu maareyn waayo, waxaa imaanaysa in wadankaasi markaa uu fashilmo ama uu markaa uu horumari waayo. bilcagsi bay leeyihiin wadamada horumaray waxa ay saameyn fiican ku yeeshaan oo ay ku guuleysteen bay leeyihiin in kheyraadkooda dabiiciga ah marka ay maareyn fiican ay ku sameeyaan. markii waxyaabaha keena in ummadi horumarto ama in ummadi horumari weysa bay leeyihiin waxaa ka mid ah kheyraadkooda dabiiciga ah marka inay maarajgareyn waayaan. soomaaliya hadda haddaan idhaahno waxaa lagu dadaalayaa sidii kheyraadka dabiiciga ah sida shidaalka oo kale sidii looga faa'iideysan lahaa. laakiin haddii waxyaabaha si fiican looga faa'iideysto oo si fiican loo maanaj gareeyo wadanku markaa barwaaqo ayuu gaari doonaa. haddii markaa
bilcagsi laga faa'iideysan waayane dhibaata ay markaa ku noqon doontaa. marka maareynta dabiiciga ah wadamada si uga faa'iideysteen iyo wadamada markaa aan ka faa'iideysan ee markaa burbur iyo waxyaabaha galay, waxaan rajeynayaa inaan maalin podcast ka diyaariyay kanaalka insha Allah waad ka heli doontaa shidaalka Soomaaliya. xalqadaas aad u raadi qaybta hoose markaa ama playlist ka fiiri, halkaas insha Allah waad ka heli doontaa. cashirkeena 8aad ee buuggeena aan ka baranayna wax weeyaan, qoraagu waxay leeyihiin waxyaabaha ummadaha horumariya juqraafiga ma ahan. waayo bay leeyihiin juqraafigu ma go'aamiyo horumarka. wadamada qaar waxay leeyihiin wuxuu ku yaalaan meelo yacni cariiri ah ama wadamo waxay ku yaalaan inta badan aan horumar samayn. haddana saasoo ay tahay wadamadaasi markaa horumar bay sameeyaan. sidaa daraaddeeda markaa waxyaabaha ummad horumariya bay leeyihiin ama ummad fashiliya juqraafigu qeybka ma aha. saamaynta ama faktarka ugu weyn bay leeyihiin juqraafiga ma aha, laakiin dowladda ama hay-adahooda marka ay samaysanayaan ayaa faktarka koowaad ah. marka juqraafiga bay leeyihiin haddii juqraafiga si fiican uga faa'iideysana horumar buu keenaa. haddii markaa juqraafigu uu noqdo juqraafi xunne wadanka kama dhigayo wadan bilaa dibdhaca, waayo ayagay dadka ku xirantihi bay leeyihiin. dadka wadanka iskale qaabka ay u dhaqmaan, qaabka maamulkooda iyo hogaankooda iyo dowladooda ay noqoto ayaa markaas ay ku xiran tahay haddii juqraafiga uu saameynayo iyo haddii markaa uusan saameyn doonin. cashirka 9aad ee buugga aan ka baranayna wax weeyaan, qorayaashu waxay ku doodayaan fashilka ummadaha ma ahan bay yidhaahdaan wax shil ah oo kadis wax ku dhaca maaha. fashilka ummaduhu waxay leeyihiin waa wax muddo soo socday, dhowr iyo 10 sano, dhowr iyo 20 sano, dhowr iyo 30 sano ayuu markaa fashilkaasi soo socdaa. waxyaabaha badan oo isku tagay bay leeyihiin ayaa waxa ay keenaan in markaa ummaddu ay fashilanto. marka in hoggaanka xumaado, in dhaqaalihii hoos u dhaco, in dagaalo dhacaan, in markaa cadaalad daradii meesha ay ku badato, in musuqmaasuqu ku bato, waxyaabahaasoo markaa muddo soo jira bay leeyihiin oo waxna laga qaban waayey ayaa waxa ay keenaysaa bay leeyihiin ummaddu ay markaa fashilanto. sidaa daraaddeeda markaa fashilka ummaduhu waxay leeyihiin yacni wax shil ah oo si kadis ah ku dhaca yacni ma ahan. cashirkeena 10aad waxyaabaha keena bay leeyihiin in markaa wadan uu fashilmo waxaa qeybka ah xukunka kelitariska ah. xukunka kelitariska ah bay leeyihiin dhaqaalaha dhan buu curyaamiyaa. in markaa hal qof laga dambeeyo, talada markaa qofka looga dambeeyo, doorasho la-aan inay wadanka dhacdo, dadka shacabkiisa waxba dooran bay leeyihiin. waxyaabahaasoo dhan waxay keenaan markaa wadanku inuu fashilmo oo markaa dowlad ahaana markaa inuu burburo. cashirka 11aad ee buugga aan ka baranayna wax weeyaan, qoraagu waxay leeyihiin waxyaabaha keena in ummaduhu ay burburaan ama inay burburi waayaan waxaa qeybka ah dowlad daciif ah. haddii dowlad ay noqoto bay leeyihiin dowlad daciif ah oo go'aanadeeda markaa shacabka marka aan ku dabaqi karin, go'aanadeeda arrimaha dibadda oo kale ay noqdaan go'aamo daciif ah. waxyaabahaasoo dhan bay leeyihiin haddii dowladdu markaa ay daciifnimo iyo waxyaabaha sifada ay yeelato waxaa imaanaysa bay leeyihiin in ummadaasi ay fashilanto ama in qarankaasi markaa inuu fashilmo. wadamada inta badan bay leeyihiin fashilma dhammaantooda waxyaabaha ay ka siman yihiin waa in dowlad daciif ah marka ay leeyihiin, go-aan ay gaari karin, siyaasadeeduna marka ay tahay siyaasad marka aan wanaagsanayn. cashirkan 12aad ee buuggan aan ka baranayna wax weeyaan, waxyaabaha keena bay leeyihiin ummaduhu marka inay burburaan waxaa qeybka musuqmaasuqa. haddii wadanka musuqmaasuqu uu ku bato bay leeyihiin oo markaa musuqmaasuqu waxba laga qaban waayo waxaa imaanaysa in markaasi meesha cadaalad darro ay ku badato. waxyaabahaasina waxay keenayaan bay leeyihiin in wadankaasi ama dowladdaasi marka ay fashilanto. wadamada horumar bay leeyihiin musuqmaasuqooda aad buu u yaryahay, madax iyo shacabba markaa waa la xisaabtamaya, sharciga meeshan ku xoog badan, markaas waxaa horumar bay sameynayaan bay leeyihiin. cashirkeena 13aad ee buuggeena aan ka baranayna wax weeyaan, fursadaha dhaqaale bay leeyihiin waa inay markaa noqdaan kuwa furan. fursadaha dhaqaale bay leeyihiin ee wadanka waa inay noqdaan kuwa furan, waayo bay leeyihiin waxay dhiirigelinaysaa shacabka, waxay dhiirigelinaysaa bay leeyihiin qaranka. dhaqaalahaas furan waxa uu keenayaa bay leeyihiin in markaasi uu horumar sameeyo.
haddii dowladda suuqyo caalamka markaa ay u furanto oo suuqyo kala duwan markaa ay ka howlgasho, haddii dhaqaalaheeda wadankeeda ay open noqdo oo shirkado fara badan wadanka imaadaan, waxyaabahaas oo dhan bay leeyihiin waxay qayb ka qaadanaysaa wadanka inuu horumar sameeyo. laakiin waxyaabaha keena bay leeyihiin in wadan uu horumar sameyn waayo ama inuu fashilmo waxaa qayb ka ah in dhaqaalahooda ama fursadaha dhaqaalaha uusan ahayn markaa kuwa furan oo kuwa xiran waaye oo dadka loogama faa'iideyso, caalamkana markaa kuwa u furan ma aha. cashirka 14aad ee buuggan aan ka baranayna wax weeyaan waxyaabaha keena bay leeyihiin ummaduhu marka aanay fashilmaan waxaa qayb ka ah siyaasiyiinta oo aan xoroobin. dadka hogaamiyaasha ah ee leaderka ee wadanka hogaaminaya bay leeyihiin dad xoroobay weli ma aha, qolo kale gacanta ugu jiraan, qolaa maamulaysa, qoladaasa wixii ay sameyn lahaa u soo jeedinaysa, qoladaasay ka dambeynayaan. halka bay leeyihiin wadamada horumaray madaxdoodu aynu yihiin kuwa markaa madax bannaan oo xoroobay. marka waxyaabaha ummadaha horumaraya bay leeyihiin iyo waxyaabaha aan ummadda horumarin waa leadershipka. haddii leadershipka go'aamadiisa iyo tallaabada uu qaadaya bay leeyihiin haddii ay noqdo kuwo xor ah oo asaga markaa ka imaatay oo cid gadaal yacni ka taabanaysa aysan jirin ama ka maamulaysa haddaysan jirin, ummadaas inay markaa horumar samayso ayaa fudud. laakiin haddii hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta wadankaasi ay noqdaan kuwo aan xoroobin waxaa imaanaysa bay leeyihiin wadankaas inuu fashilmo dowlad ahaan iyo ummad ahaanba. cashirkeena 15aad ee buuggeena aan ka baranayna wax weeyaan isbeddelka hay-adaha bay leeyihiin waa fure. isbeddelka hay-adaha, nidaamka isbedelaya, hogaamiyaasha isbedelaya, waxyaabahaasoo dhan bay leeyihiin qorayaashu waxyaabaha ummadaha horumariya ama ummadaha markaa fashiliya ay qayb ka noqdaan. haddii markay hay-aduhu isbedelayaan ama hogaamiyaasha ay isbedelayaan, haddii markaa ay noqdaan bay leeyihiin kuwa si fiican loo maareeyo oo ciddii ku habbooneed hay-adaha loo dhiibo, ama hay-ad tayo leh oo isbedel samayn karta oo xoog badan haddii ummadda ay qabato, ummadaasi horumar bay gaaraysaa. bilcagsi, haddii isbedelka hay-adaha uu ku dhaco laakiin hay-adahaasi isbedelka ku dhacaya uu noqdo bay leeyihiin mid aad u xun, hogaamiyaal aad u xun, kuwa hay-adaan wax qabanaynin, haddii ummadda markaa ay hogaamiyaan ummadaasi markaa way fashilantaa. marka waxyaabaha keena bay leeyihiin inay ummadyo horumarto, inay ummadina dib marto waxaa qayb ka bay leeyihiin maareynta isbedelka hay-adaha. hay-aduhu markay isbedelayaan in markaa ciddii ku habbooneyd loo dhiibo ama in ciddii ku habbooneyd loo dhiibi waayo. cashirkeena 17aad ee buuggan aan ka baranayna wax weeyaan cadaaladda iyo sharcigu bay leeyihiin waxay dhisaan dowlad. haddii cadaaladdu bay leeyihiin ay xoog yeelato, haddii uu sharcigu noqdo sharci wanaagsan oo kala dambeyn iyo sidii saxda ah u adeegaya, waxay dhisaan bay leeyihiin dowlad. wadamada horumaray inta badan bay leeyihiin cadaalad iyo sharci adag ayaa ka jira. cadaaladdan waa lagu dadaalaa shacab iyo madaxba, sharciguna waa loo hoggaansan yahay waana loo siman yahay. laakiin ummadaha horumaray bay leeyihiin cadaalad darrada ku badan, sharcigooduna waxay leeyihiin waa sharci daciif ah oo qolo gaara u adeegaya, oo qolo gaara markaa hoos imaanaya, oo dadkao dhan markaa aysan u sinayn. dad gaara buu qabtaa bay leeyihiin, dad gaarana ma qabto. cashirkeena u dambeeya ee 18aad ee buuggeena aan ka bari karna wax weeyaan qorayaashu waxay ku doodayaan in waxbarashadu ay tahay furaha mustaqbalka. waxyaabaha keena bay leeyihiin in ummadi ay burburto iyo waxyaabaha keena bay leeyihiin in ummadi ay markaa horumarto waxaa qayb ka waxbarashada. wadamada horumar bay leeyihiin dhaqaalaha ugu badan waxaa qaato dadka waxbarashada ka shaqeeya sida macallimiinta oo kale. sidaasoo kale bay leeyihiin waxbarashadooda manhajkooda iyo ardaydooda markaa dhaqaalaha ugu badan bay leeyihiin wasaaradaha qaata waxaa qayb ka ah wasaaradaha waxbarashada, waayo caruurtii iyo manhajkii waxyaabahaas oo dhan baa la tageynaya. wadamada markii aan horumarin bay leeyihiin waxbarashadoodu aad bay u liidataa. dadka waxbarashada ka shaqeeya haddii arday ahaan lahayd, haddii ay maamul ahaan lahayd, haddii ay macallin ahaan lahaydba, ayaguna markaa xaquuqda ay lahaayeen ma helaan oo ay halkaa way ku bahdilan yihiin. marka 18kaas cashir waa 18 cashir oo qorayaashu ay markaa kusoo bandhigayaan buuggooda loo yaqaano maxay tahay ama sababta ay ummaduhu u fashilmaan waa maxay. waxaan soo qaadanaynaa haddaba saaxiibayaal ilaa iyo 8 xal ay qorayaashu markaa buuggooda ay kusoo bandhigayaan oo haddii wadamada aan horumarin ay sameeyaan ay ku noqon karaan wadamo horumaray.
cashirka koowaad ama qodobka koowaad waxay leeyihiin dalalka waa inay xoojiyaan wax soo saarka gudaha bay leeyihiin domestic productiga waa inay xoog saaraan in dadka hal abuurka la xoog la saaro wax soo saarka beeraha in la dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha in la dhiirigeliyo gudaha bay leeyihiin waa inay markaa xoog saaraan kadibna waxyaabaha gudaha ay soo saarayaan bay leeyihiin waa inay adduunka u dhoofiyaan oo ay noqdaan ama ay ka mid noqdaan wadamada markaa wax dhoofiya ama wax soo saara qodobka labaad ama xalka labaad ee soo bandhigayaan waxaa qayb ka ah tiknoolajiyadu bay leeyihiin waa furaha horumarka marka ummadda haddii rabto bay leeyihiin inay horumar samayso ama ay doonayaan inay ka mid noqdaan ummadaha horumarka sameeyey waa inay tiknoolajiyadu ku dadaalaan bay leeyihiin qaybna waa inay ka noqdaan dadka tiknoolajiyada wax kusoo kordhinaya cashirka saddexaad ama xalka saddexaad ee soo bandhigayaan waxaa weeyaan la dagaalanka musuqmaasuqa haddii bay leeyihiin dowladda ay rabto inay dowladda horumarsan ay noqoto haddii ay doonayso waa in ay markaa musuqmaasuqa ay la dagaalanto cidda wadda iyo waxa la wixii markaa musuqmaasuq la xiriira waa inay markaa la dagaalamaan xalka afraad ee soo bandhiga qorayaasha waxa weeyaan dhalinyaradu waa in noqdaan bay leeyihiin hoggaanka mustaqbalka dhalinyarada waa in la tayeeyaa dhalinyarada waa in aqoontooda kor loo qaadaa dhalinyarada waa in isbedel iyo horumar lagu sameeyaa bay leeyihiin waa in hogaamiyaasha mustaqbalka waa inay noqdaan loona diyaariyaa bay leeyihiin wadamada markaa horumar bay leeyihiin mustaqbalka xooga saaraan dhalinyarada mustaqbalkooda xooga saaraan halka dhalinyarada wadamada aan horumarin bay leeyihiin ama ummaduhu ay fashilmaan dhalinyaradooda markaa ay yihiin dhalinyaro aan horumar iyo aqoon iyo markaa wixii loo baahnay aan lagu hubaynin xalka shanaad ay soo bandhigayaan wax weeyaan baarlamaanka iyo sharciguba leeyihiin waa inay madax bannaanaadaan baarlamaanka maadaama ayagu ay yihiin kuwa wadanka maamulaya ee markaa kala hagaya sharciga sameynaya ama markaa sharciga la sameeyay kadib bay leeyihiin waa inay labaduba noqdaan kuwa madax bannaan waa inay noqdaan qolo kale markaan hoos imaanaynin waa in go'aanadooda iyo nidaamkoodu ay noqdaan kuwa madax bannaan oo aan la faragelin karin dadkoo dhan u siman dadkoo dhan marka ay ka dambeeyaan xalka lixaad ee ay soo bandhigayaan qorayaashu wax weeyaan taariikhdu bay leeyihiin barashadeeda waa furaha xalka ama mushkiladda ummadda wadamada horumar bay leeyihiin waxa ay sameeyaan inay baaritaan ku sameeyaan wadamada kale ee horumarka ku sameeyay marka waxay baaritaan ku sameeyaan bay leeyihiin sida wadamadaasi u horumareen dhibaatooyinkii qabsaday sidii u xaliyeen waxyaabahaas oo dhan bay leeyihiin markay soo ogaadaan ayay waxay ku dabaqaan bay leeyihiin ummadooda kadibna ayaguna horumar bay sameeyaan marka waa in taariikhda bay leeyihiin wax laga bartaa wadamada markaa horumarayne waa in markaa ayagana lagu daydaa taariikhdooda waa in la baaraa marka barashada taariikhdu bay leeyihiin waa aad bay muhiim u tahay marka buugga haddaan wax yar ka baxo wadankan Malaysia Mahathir Mohamad al-Wasaari wadanka Malaysia waxaana ka xasuustaa in wadankan China mise Japan baan qiyaasaya wadamada indhayarka mid ka mid ah ayuu wuxuu safar ku tagay 68 jeer 68 jeer wuxuu leeyahay waxaan u tagay buu leeyahay bis inaan soo fiiriyo sida wadankaasi markaa horumar uu ku gaaray marka qorayaashu waxay ku doodayaan markaa qodobka hadan saaro soo qaato in markaa taariikhda barashadeedu ay tahay furo muhiim ah oo la rabo bay leeyihiin in xoog la saaro si markaa horumar loo gaaro cashirka toddobaad ama xalka toddobaad ee buugga qorayaasha ku soo bandhigayaan waxa weeyaan si ummadda u horumarto meel ay u gaarto hal abuurka waa la dhiirigeliyaa bay leeyihiin dadka hal abuurka leh ee dhalinyarada ah ee hal abuurada kala duwan sameynaya waa in xoog la saaraa bay leeyihiin la dhiirigeliyaa wixii loo baahan yahay waa in la siiyaa dhaqaale waa in lagu kaabaa taasi waxay imaanaysaa bay leeyihiin in wadankaasi uu noqdo wadan horumar leh wadamada horumar bay leeyihiin dadka hal abuurka leh number 1 weeyaan waa dadka aad loo dhiirigeliyo hatta waxay leeyihiin shacab iyo madaxba dadka waa dhiirigeliya marka qodobkaas bay leeyihiin haddii ummadda ay rabto inay meel ka kacdo oo meel sare tagto waa in markaas hal abuurka waa in dhiirigeliya xalka sideedaad ee u dambeeya waxa weeyaan qorayaashu waxay leeyihiin ummadda si ay horumar u samayso waa inay xoog saaraan
hogaamiyaha waa inay xoog saaraan sababtoo ah bay leeyihiin horumarku waa suurtagal bay leeyihiin haddii hogaamiyaashu ay saxan yihiin hogaamiyaal sax haddii jiraan oo leadershipki soo bartay oo cilmigii iyo aqoontii leh horumarku waa suurtagal bay leeyihiin marka sideedad xal bay qoraasho soo bandhigayaan si haddii ay ummad rabto marka inay horumar u samayso oo ay u guulaysato marka saaxiibayaal xalqadeena buuggeeni ahaa maxay ummadu u fashilmaan insha Allah halkaas ku soo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa in awiyana wax ka faa'iiday aad ba u maasantihiin haddii tan kanaalka markii ku wari saaxiib kanaalka ku soo biir saaxiibada noocasun aad u maasantihiin horumar baan idin rajeynayaa saaxiib